qisadani waxay ku dhacday qoys 3 wiil oo isku magac ah lahaa. Aabe ayaa wuxuu dhalay 3 wiil, 3dabana wuxuu u bixiyay isla hal magac oo kaliya. Magaca Cabdullaahi ah buu wiilashiisa ku safay. In la kala garan waayo ama markii mid loo yeedhaba kuwa kale soo boodaan ama markay gaashaan qaadeen kala garashadoodu adkaato ha sii joogtee qoyskii waxaa soo food saartay hawl kale oo xallintoodu adkaatay. oo maxay tahay? waa adduun oo laguma waare aabbihii 3 wiil halka magac wadaajiyay ayaa gaadiidkii geerida lagu soo dul furay. tiisii baa gashay, waqtigii uu aakhiro u guuri lahaana waa la gaadhay. sida caadiga ah wuxuu damcay inuu dardaarmo. markii uu dardaarmayay ayuu ehelkii, asxaabtii, qoys iyo qaraabo wixii dul joogay ayuu dardaaranka wuxuu ugu daray: Cabdullaahi wuu i dhaxlayaa, Cabdullaahi ima dhaxlayo, Cabdullaahina wuu i dhaxlayaa. waa 3 wiil oo isku magac ah. mid si gaar ah uma uusan carrabaabin ama mid gaara kuma farfiiqin. 3da Cabdullaahi ka uu yidhi ima dhaxlayo kamuu soo dhex saarin, sidiina wuu ku geeriyooday kuna godgalay. markii tacsidii iyo aaskii odayga laga soo rogmaday ayaa ehelkii isu yimid si reerka xoolaha iyo agoonta loogu dhexlo. markaasaa waxaa la ishaybiyey oo Cabdullaahiga aan dhaxalka ka qayb gelayn waa kee. iyagu isma garanayaan, ehelka aga joogaana ma garanayo. waa hawl xallinteedu adkaatay. sidaas iyadoo xaaladdu u murugsan tahay ayaa waxgaradkii deegaanka joogay waxay ku taliyeen nin garyaqaan ah oo waddan durugsan lagu sheegay in 3 wiilba loo diro uuna soo kala saaro ka aan odayga dhaxlayn iyo labada dhexlaya. sahay baa loo gingimay. safar dheer bay u diyaar garoobeen, socodkoodiina way bilaabeen. waxay muddo sii socdaan, waddada cagta ku sii hayaan. safarkii iyagoo dhexda kaga sii jira baa waxay la kulmeen nin reer baadiye ah oo geel wada. markaasuu intuu u gacan haadiyey wuxuu yidhi: war istaaga, aan baadi idin weydiista way istaageen. markuu la soo joogsadayna wuxuu weydiiyey: war awr baa iga lumaye ma aragteen? maya, maanan arag. haddaba dhaqaaqii ay dhaqaaqeen mid baa ka daba yeedhay ninkii awrka weydiiyey: war awrka aadna weydiisay ma ila'aa? ninkiiba dhabbu usoo dhugto wuxuu yidhi: war haaya, waa ila'aaye, xaggeed ku aragtay? kii kalea wuxuu yidhi: Cabdullaahigii kale weeye. war ma dib la'aa oo awrkaagu ma dib go'naa? war waa isaga ii sheeg. kii 3aadna wuxuu yidhi: war janjeedh ma lahaa ama kurusku dhinac ma u marooray? hadba sidii loo yaqaan, janjeedh ama hays. war waa isaga tilmaanta ha ka badinina bartaad ku aragteen ilmaada reyaalow ii tilmaama awrkii aan raadsadee. socodkoodii bay iska sii wateen. waxayna ugu jawaabeen: maanu arag. war aragto oo weydinkan tilmaamaye awrkaygii haygala dhaqaaqina ii sheega. maye, maanan arag. madaxa la isla galay. ninkii reer baadiyahana hortooda ayuu istaago wuxuu yidhi: awrkaygii ilaa aad ii sheegtaan ma dhaqaaqaysaan, sababtoo ah awrkaygii tilmaamihii uu lahaa waad wada haysaan. inaad sidaa ku tagtaan ha filina. war awrkaagii maanan arag, laakiin haddaadna haysato waa kaa garbaxaynaaye meel garyaqaan joogo inagee. ina mariya dabada ayaa la iska kaxeeyey. garyaqaan baa loo wada tegay u garqaada. maba garanayaan iyaguya waa ninkii loo soo haybiyeye way soo hor joogsadeen. ninkii reer baadiyaha ahaa baa mudiciyehe isagaa markiiba garta furay. nimankan waxaan u haystaa awrkaygii tilmaamihiisiina way wada sheegeen. garyaqaan, awrkaygii ha layga siiyo, ama qaadi ha layga siiyo. war awrkaad tilmaanteen
idinkuna meel ku sheega. nimankii waxay isla soo taageen awrkaa maanu arag, oo haddaydan arag seed u tilmaanteen. ninba mar baa ereyadaas iyo su-aashaas la haybiyey. kii yidhi ma dib la-aa, waxaa la yidhi war maxaad ku garatay awrka haddaadan arag inuu dib la-aa? wuxuu yidhi waxaan arkay adeenti ama raadkaasaan ku gartay inuu dib la-aa, sababtoo ah meel uu ku saalooday baan arko. saalada awr neefku markuu dib leeyahay wuu firdhiyaa, markuusan dib lahaynna ma firdhiyo. tusaalaha halkaas baan ka qaatay ee awr ma arag anigu uu la soo istaagay. kii labaad baa la weydiiyey cabdullaahigii labaadoo waxaa la yidhi war awrku ma ilaa aabaad tidhi maxaad ku garatay haddaadan arag? wuxuu yidhi sidaa walaalkay sheegay raad baan arkay, raadkaasna dhirta hal dhinac buu ka daaqayay, sababtaas baan ku gartay dhinaca uusan ka daaqaynin inaan ishiisu ka bedqabin. waaya kii saddexaad baa loo yimi oo waxaa la yidhi war janjeer ma lahaabaad tidhi maxaad ku garatay awrka maqan inuu janjeer leeyahay? raadka walaaladay arkeen baan arkay, cagta markuu dhulka dhigo dhinac bay ka diismaysay, dhulku dhinac buu ka diismayey, dhinacna waa ka bedqabatay, oo raadka cagta dhulka ma sinayn. sababtaana waxaan u gartay inuu neefku dhinac u janjeero, laakiin ma arag awrkaa lay haybiyey. qaadigii inuu qaraarka iyo go-aanka rido, judgmentkana ku dhawaaqo baa la gudboonaatay. wuxuuse codsaday in aroortii caawana uu isagu sooriyeeyo, aroortiina ay u wada yimaadaan. waayahay garsoorbu wuxuu u diyaariyey casuumaad iyo hoy fiican oo habeenkaa ay hoydaan. sooriyadii iyadoo la sugayo, nimankiina garyaqaankii ama garsoorihii ay u casuuman yihiin, ayaa mid ka midii wuxuu yidhi war sirdoon baa inala jooga, si ay dhiibu ina daba dhigay garsooruhu ee afkiina iyo adinkiinaba ilaashada. saddexdii wiil mid ka mid ah ayaa ereyadaas walaaladii haybiyey ama u sheegay. iyagoo dhifoon dhega nugul oo digtoon ayaa waxaa loo keenay cashadii ama sooriyadii loo soo diyaariyey. waa hilib iyo jebati ama kimis, hadba sida loo yaqaan. markii lasoo dhigayba mid baa wuxuu yidhi war ninka ina sooriyeeyey ee aynu garsooraha ugu nimid waa garac oo meher xalaal ah kuma dhalan, bal adba muxuu ku keenkeenay? kii labaadna wuxuu yidhi war jebatigan la inoo soo dhigay gabadh uur leh baa soo dubtay. kii saddexaadna wuxuu yidhi war hilibka la socda hilib xoolaad ma aha waa hilib ey, oo ey baa la inoo qalay. muskaa loogu jiraa, warkoodaa la tabinayaa, garsoorahana loo geynayaa. markiiba waa lala orday. raggii waardiyaha ka ahaa afkooda iyo addankooda ilaalinayay baa ku taabtay. waagu markuu baryeyba garsoorihii soo hor fadhiisteen, judgmentkii shalay buu riday. wuxuuna guddoomiyey inaan nimankaa awr lagu lahayn. ninkii awrka raadinayeyna dhulka awrkaaga ku ogey ka raadso, nimankan waxba kuma lihid buu xukumay. tiisii buu usoo noqdo wuxuu yidhi war saddexdaa weedhood baad xalay tidhaahdeen, bal waxaad ku tidhaahdeen baa la idinka rabaa. ninkii yidhi jebatiga la inoo keenay ama kimista la inoo keenay gabadh uurlaa soo dubtay, waxaad ku keentay ama ku tidhi caddee baa la weydiiyey. wuxuuna yidhi gabadh uur leh markay cunto dubayso ee daawo dul fadhido, dhanka iyada xiga dhamacda way ka riixdaa, dhanka shishay isugu geysaa, dhinacna way u fadhiisataa. dhinaca shishe bay ka guban tahay jebatigu, oo dhankii iyada xigay kama bisla. sidaas baana ku gartay. iisii joog, adiga waa kuu soo noqonayaa. halkaas buu kaga gudbay oo kii labaadna weydiiyey hilibkani waa hilib ey, ee hilib oon xoolaad ah ma aha, maxaad ku tidhi? wuxuu ku jawaabay xoolaha nool ee hilibkooda la cuno, lafaha waxaa ku xiga jiirhka, kadibna waxaa ugu sarreeya baruurta. laakiin eygu sidaas ma aha, oo lafta iyo baruurta isku xiga, jiirhkuna waa ugu korreeyaa. sidaa darteed baan ku gartay.
kii saddexaad baa loo yimid, waxaa la yidhi waa ninkii u daraa ee yidhi garsooruhu waa garac. war maxaad ku tidhi garsooruhu waa garac? wuxuu yidhi waxaan ku idhi nimaan garac ahayn intuu dad sooriyeeyo sirdoon ma daba dhigo, sidaa darteedna waan ku gartay maadaama aad intaadna sooriyeysay haddana sirdoonna daba dhigtay. hooyaday baa nool, iyada ayaa la iweydiinayaa ayuu ku jawaabay. garsoorihii hooyadii buu raadiyey, wuxuu haybiyey hooyo, cidda i dhashay bal ii sheeg. hooyadii waxay u sheegtay inaan aabbihii uusan dhalin ee aabbe kale uu dhalay.